ina keen tagnay dal boqortooyeedkan ku yaala koonfurta bari ee qaaradda Asia saaran gacanka India China docda waqooyi xuduudda kala leh Myanmar iyo Laos docda bari ay Cambodia dariska ka yihiin dhinaca koonfureedna Malaysia iyo gacanka Thailand waa isla boqortooyada Thailand oo ah mid ku caan ah xeebaha nadiifka ah dhismayaasha qadiimiga ah iyo qasriyada boqortooyo ee qurxoon caasimadda dalku waa Bangkok tirada dadkiisana waxa lagu qiyaasaa 70 milyan oo qof muuqeenana sii faafi hadii uu ku qanciyo kuna soo dhawow 8 xaqiiqo ee aynu Thailand kaaga warinayno Zeom ayaa dalkan Thailand horey loogu magacaabi jiray waxa la wariyay inay Shiina isku dalkan bilowgii ugu yeeri jireen Xi'an ka oo Portugiiskuna ku bedeleen Siom buugaag badan oo xilliyo hore la qoray ayaa laga heli karaa magacan hore ee Siom sidoo kale Thailand waa halka ay ka yimaadeen bisadaha caynkooda la yiraahdo Siamese cats tobankii qofba hal qof oo kamid ah dadka Thailand waxa uu ku nool yahay caasimadda waddanka ee Bangkok Thailand waa mid kamid ah dalalka sida xawliga u koraya dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba oo dadkeedu waxa uu haatan kor u sii dhaafayaa 70 milyan oo qof Bangkok waa caasimadda waddanka magaalada ugu weyn iyo hoyga in badan oo kamid ah bulshada waddanka waxaana la sheegaa inay in ka badan 8 milyan oo qof halka ku nool yihiin taa oo ka dhigtay mid ay dadku buux dhaafiyeen muwaadiniinta halka deganna waxaa dheer dalxiisayaasha oo Bangkok joogta ugu qulqula maadaama la sheego khibradaha safrayaashu halkaasi ka helaan inay kuwa khaas yihiin jacaylka maroodiga ee dadka reer Thailand xayawaanka kuwooda lixaadka weyn sida maroodiga oo kale Thailand waxa ay warisay inay u baahan yihiin ka warqab caafimaad oo joogto ah iyo qaliino khaas ah oo lagu sameeyo waxaana ay maroodiga u fidiyaan daryeel caafimaad oo heer sare ah xayawaanka oo dhan ayay ixtiraamaan bulshada Thailand ha yeeshee maroodiga ayay si gaar ah ugu tixgeliyaan adkaysi xoog iyo cimri dherer bulshada Thailand waxay si weyn u ixtiraamaan boqortooyada dalkaas waxayna xirtaan dhar jaalle ah si ay midaasi u muujiyaan nidaam dawladeedka Thailand waa boqortooyo ha yeeshee leh xukuumaddu u sareeyo ra'iisul wasaare halka boqorkuna dawladda u sareeyo boqorka haatan ee dalku waa Maha Vajiralongkorn ka oo xilka haya tan iyo markii aabihiis geeriyooday October 2016 rayidka Thaigu waa kuwa jecel boqorkooda si weyn u ixtiraama maalinta Isniinta ayayna ku labistaan dhar jaalle ah Isniintu waa maalintii uu dhashay boqorkii kan haatan ka horeeyay halka jaaluhuna yahay midabka calanka boqortooyada dalkaas Thailand waa mid kamid ah dalalka Asia ee leh maalqabeennada ugu badan tira u dhaxaysa 50 ilaa 60 maalqabeen ayaa liiska shabakada caalamiga ah ee Forbes ugu jira Thailand waxaana la wariyaa in kuwa ugu maalqabeensan taajiradaasi haystaan lacago lagu qiyaasay in ka badan 30 bilyan oo dollar midkiiba wadaadada Buddhistaha Thailand waxa lagu helay fadeexad ah inay si sharci darro ah uga ganacsadeen shabeel dhal ah wadaadada ugu sareeya macbadyada Buddhistaha ee Thailand waxay muddo la dhibtoodeen fadeexad lagu helay oo la xiriirtay inay si aan sharci ahayn uga ganacsadeen dhasha shabeelka indhaha warbaahinta caalamiga ah ayaa warkani soo jiitay 2016 kadib markii la helay xog sheegaysa in wadaadadani lacag ka badan 1.5 milyan oo dollar ka macaasheen ka ganacsiga dhasha shabeelka waxa loo yaqaano lacag dhiqidda money laundering waa ka mamnuuc dalkan Thailand marka aad tagayso dal cusub waxa ugu muhiimsan waa inaad eegto sharciyada iyo farqiga dhaqanada si aad uga badbaado ciqaab aad ogaan la'aan wajahdo Thailand lagama ogola habkaas loo yaqaano lacag dhiqidda haddii lagugu qabtana waxaad la kulmi kartaa xabsi dheer ama dil toogasho oo ah xukunada ku waajiba gudaha dalkan ciddii falkaas lagu qabto Red Bull mid kamid ah cabitaanada adduunka ugu caansan dalkan Thailand ayaa lagu sameeyay 1976 ayuu nin Australian ah oo la oran jiray Dietrich Mateschitz waxa uu cabitaanka enerjiga ah ee Red Bull ka asaasay dalkan ka oo noqday ganacsi guuleystay isla goortaana dunida oo idil ku baahay gaar ahaan dalalka galbeedka 6 bilyan oo qasacadood oo cabitaankan ah ayaana sanad walba la iibiyaa waxaana uu noqday ganacsi dhiirigelin iyo astaan u noqday wax soo saarka Thaiga